maqaamka iyo mas'uuliyadda oo lagu kabay odaytinimada iyo nabadoonaynta mas'uuliyadda heer qaran waxayna faraysaa inaan qof kasta oo wax tabanayo raadinno waana ku sii soconaynaa waddadaas ilaahay idinkiis waa mahadsantahay xildhibaan waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa shacabweynaha soomaaliyeed ee waqooyi maamulka cusub ee waqooyi bari oo ku guulaystay inay dhistaan dowlad goboleed ku timiday rabitaanka shacbiga dib u heshiisiintooda iyo isu tanasulkooda waxaanan ugu baaqayaa maamulkaasi curdanka ah inuu ahmiyad siiyo sugidda amniga xoojinta dib u heshiisiinta maamulada deriska la'ah iyo fidinta adeegyada bulshada deegaanka baahida weyn ay u qabtay muddada dheer dhismaha maamulka waqooyi bari kama dhigna inay kala maarmeen deegaanada deriska la'ah dowladda federaalk ee soomaaliya waxay geed dheer iyo geed gaaban u kori doontaa wax kasta oo fududaynaya wada shaqaynta iyo nabad ku wada noolaanshaha deegaanadaas iyo kuwa deriska la'ah ee horayba u ahaa wiil iyo waalid xigto iyo xigaalo aan kala go'i karin marna waxaan ugu baaqaynaa walaalaha inay u guntadaan nabadda xaqiijinta amniga xaqiijinta amniga fududayn kara isu socodka dadka iyo ganacsiga si guud ahaan nolosha dadka wax looga bedelo walaalayaal ka mid ma aha dhaqanka suuban ee soomaalida ay leedahay in maxaabiis la kala haysto balse waxaa dhaqan ah ragga dagaalka lagu qabto in la marasheeyo oo qaarkood loo guuriyo oo iyagoo dareemaya in la karaameeyey ay dib ugu noqdaan reerahoodii iyo degaanadoodii taas oo keeni jirtay raggaasi inay noqdaan danjirayaal nabadeed oo u dhaxeeya degaanada waxaan leenahay walaalaha inay xusuustaan aan rabnaa mahmaadii ahayd xasuustaa ma xiriirsho ee aan diiradda saarno berri oo yaynaan ku habsaamin shalay iyo wixii dhacay oo aanan soo celi karin qodobka shanaad khilaafkeenna annaga ayaa xallisanayna walaalayaal khilaafku wuxuu ka mid yahay nolosha aadanaha wada nool oo wada macaamilaya ha ugu sokeeyaano oori iyo saygeeda khilaafku ma xuma mana fiicna waa ra'yi kala duwanaansho khilaaf kelmadda haddii la macneeyo ma xuma mana fiicna laakiin waxaa xumeeya ama fiicneeya sida loo xalliyo haddii loo maro waddo wada hadal lagu gaaro heshiis iyo haddii loo maro waddo lagu gaaro cunfi iyo colaad aan la garanayn meesha ay ku dhammaanayso taasi waa waddadii aan ku habawnay ee aan qaadnay soddon iyo dhowr sano ayay nagu sii maraysaa inaan waddadii saxda ahayd ee shalay aan ka soo habawnay aan ku noqonno sidaas daraaddeed asalku wuxuu yahay khilaaf hadduu yimaado inaanan laysku dayin in xoog iyo xabad in lagu xalliyo ee lagu xalliyo wada hadal iyo wada xaajood mar kasta khilaafkaasina soo maray wuxuu keenay inaan burburno burbur dhammaystiran iyo faragelin shisheeyo oo aan dhammaad lahayn oo qaarkeed ilaa maanta ay taagan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala nooma celiyo meeshaa taas beddelkeeda waxaan go'aansannay inaan goglo u fidinno siyaasiyiinta iyo hogaamiyayaasha bulshada ee naga ra'yi duwan si aan u dhegaysanno codka dadka soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan kuwa wax dareensaday
waxaan dhagaysanay dareenkooda iyo tabashadooda waxaana go'aansanay inaan tanasulaad ka samayno wixii dadka isku haynaya iskuna keenaya ayna ku wada jirayaan waadna la socotaan shirarkii aan la yeelanay siyaasiyiinta mucaaradka ah intoodii badnayd waxaan isku afgarannay qodobada masiiriga ee dalka maanta ka jirahay in hore loo dhaqaajiyo oo ay ka mid tahay dhammaystirka dastuurka iyo dalka laga sameeyo doorasho qof iyo cod ah oo ku salaysan xisbiyo siyaasadeed baarlamaanka sharafta leh mudanayaal imarwooyin baarlamaanka sharafta leh waxaa in badan ka soo wada shaqaynay oo aad ansixiseen in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay toos u soo doortaan shacabka soomaaliyeed hase yeeshee markii aan isbarbar dhignay inaan qayb ahaan ka tanasulno wixii lagu heshiiyey iyo inaan diidno waxaa nala habboonaatay inaan tanasulno waataan horay u soo sheegay mushkiladda ma aha khilaafka oo ah kala duwanaansho ra'yi ee waa sida hadba loo xalliyo khilaafka walaalayaal waxaan doorannay khilaafka inaan ku xallinno wada hadal iyo is-afgarasho iyo isku tanasul waxaan rajaynayaa inaad idinkuna nala aqbashaan haddii alla yidhaah waxaan weli daba soconnaa kuwa weli wax diidan ee tabashada qaba waxaan kalsooni ku qabaa in bisaylka dadkeennu uu soo gaaray meel aan laga celin karin doorasho qof iyo cod ah haddii ay weli jiraan kuwo qaba ama ku riyoonaya doorashadii dadbanayd waxaan filayaa inay jawaabta ka helayaan malyanka codbixiyayaasha ah ee iska diiwaan geliyey gobolka banaadir iyo kuwa iska diiwaan gelinaya degmooyinka dalka oo haatan si habsami leh uga socota diiwaangelinta oo qaarkood habeen madow qoraxdu gabalku u dhaco habeenku u madoobaada ayagoo weli safafka ku jiro oo diiday inay safka ka baxaan ay beri soo noqdaan xataa rabitaanka doorashada qofkii cod ah ayay tilmaamo cadcad u yihiin inahaas aan soo sheegoo dhan dalkeenna soomaaliya waa qayb ka mid ah xiriirka caalamiga haddii aan isagana wax ka sheego dalkeenna soomaaliya waa qayb ka mid ah caalamka waan ka soo gudubnay heerkii annaga nalaga tashan jiray ama naloo tashan jiray maanta talada adduunka ayaan qayb ka nahay waxaan xubin ka nahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaan leenahay mowqifyo cadcad oo ku salaysan danaheenna iyo damiirkeenna ummadeed waxaan xiriir la leenahay dowladaha caalamka oo dhan taas oo ku salaysan danaha naga dhaxeeya iyo mabda'a ah soomaali heshiis ah dunidana heshiis la'ah walaalayaal maalintii loo baahday inaan si adag wax u diidno markhaati ayaad ka tihiin oo markhaati cad ayay ummadda soomaaliyeed ka tahay mowqifkii aan gabbashada lahayn ee aan ka qaadannay marka ay nabad timaadane geesi ayaan ku nahay inaan nabadda taabo gelinno oo aan qaadanno mudanayaal imarwooyin walaalayaal gabagabadii waxaa dalkeenna isgarab socda laba dhawaaq mid waa kan sheegaya wanaagga dadka soomaaliyeed horumarka ay gaareen caqabadaha ay ka gudbeen iyo meesha ay hiigsanayaan kuwaas waa kuwa u dhimanaya xurriyaddeenna kuwa qorraxda u taagan ammaankeenna kuwa qarankeenna u huraya wax kasta oo ay ugu horrayso naftooda dhanka kale waxaa taagan kuwo ku hadaaqaya ama abuura xumaha ee aan ka shakiyin hoogga iyo halaagga iyagoo aaminsan in weliba haybad lagu gaaray karo sidaas allah subxaanahu wa tacaala uma rumeeyo riyadooda aamiin ayaan leenahay shacabka soomaaliyeed oo walaalayaal
waa inaan labadaas dhawaaq kala dooranno oo shacabkeena nabadda u doorno weliba dhammaanteen aan ku naaloonayno muxaafad iyo mucaaradba midkaan nahayba meeshaas waa dawga nagu habboon inaan marno waa dhawaaqa horumarka nabadda dimuqraadiyadda iyo dowladnimada suuban walaalayaal kalfadhigeenna toddobaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waa noo furan yahay